الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي سديد إيا سغاشناد إيا كتاب كان حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله حماية بيت الأفكار. هل كان شيخ وحكو حصايا معلومة أما حكمة عوان لوغا ديغي إن لا إلاليو afkaartu guribeela fikirkaaga iyo ilaahay waxa uu qalbi caqligaaga geliyey iyo fikirkaagaba ilaalin bay u baahan yihiin. iyaaka an tumakkina shaytaana min beyti afkaarika, iska ilaali inaad shaytaanka makamiso ood jaanis u siiso afkaartaada inuu dhex galo iyo iraadadaada iyo doonidaada. wuu fasahaadinayaa, marka waxaa kugu cuslaanayaa yascubu tadaarukuhu, inaad ka daba tagto ood iska qabata ayaa kugu adkaanaya. wuxuuna kugu tuurayaa shaytaanku markaa anwaac alwasaawis, waxyaabaha waswaaska ah ayuu marka qofka ku tuuraya. ibnulqayim raximahullah wuxuu yihi waclam, waxaad ogaataa khataraadka iyo wasaawista waxyaabaha qofka kusoo dhaca oo maskaxdaada kusoo dhacaya waxay noqonaysaa hadday ku badato wax fikirkaaga ku dhaga. fikirka markay ku dhegtana waxaad noqoni waxaad xusuusata mar walba. haddii xusuustaasi ay noqoto waxay kuu noqonaysaa marka dambe wax jawaarixdaada iyo xubnahaaga usii gudba. haddii ay sii socotona waxay noqon fatasiira caadatan, caado ayay kugu noqonaysaa inaad marka caadada in marka hore la celiyaba ashalu min qatcihaa bacda quwatihaa wa tamaasukihaa. markay xoogaysato caadadu inaad iska goyso waxaa ka fudud inaad markay fudud tahay ay yartahay bilowata aada iska celiso. alkhawaatir, waxyaabaha kusoo dhaca qofka maskaxdiisa way soo weerarayaan. laakiin quwat liimaani walcaqli, caqliga iyo iimaanka qofku ilaahay siiye iimaan weyn baa waxay kugu gacan siinayaan inaad waxa fiican ee qalbiga kusoo dhaca maskaxdaada qaadato wa calaa dafci aqbaxiha, waxa xunna aada iska celiso aada diido. shaytaanku wuxuu ku tuurayaa adiga anwaac alwasaawis walafkaar almudira, afkaarta wax dhibaysa iyo waxyaabaha qofka waswaasiyabuu kugu tuurayaa. wuxuuna kala dhex gelayaa adiga iyo fikirkaagii fiicnaa ee ku anfici lahaa buu kala dhex gelayaa. adiga ayaa wuxuu ihi ibnuqayim wa anta aladii acantahu calaa nafsik, adiga ayaa gacan ku siiyey naftaada bitamkiinihi min qalbika, adiga ayaa markii hore ogolaaday. si aad u fahamto ibnuqayim marka qaarkood hadaladiisu waxay u baahan yihiin faham daqiiqa ayay u baahan yihiin. si aad u fahamto ereygan aan aqrinayno iyo xikmadan, macnuhu waxaa weeye adba aad ku garan karto qof samaada arag waxyaaba caadooyinaba hadda adigu leedahay, laga yaabaa ood iska goyn kari laadahay. wax caadaa wuxuu raba ha noqdo. caadooyin badan baa jira oo dadka taxakumay oo waxayna dhahaan mufaaraqatulma'luufi mashaqa, yacni shayga haddii aad u dumanto ood wax badan aad samayso in laga tagaay dhib bay kugu noqon. marka shaygaas bal hal mithaalan ka soo qaado. maanta waxa dadka inoogu daran waa waxyaabahan miidiyaha iyo teknolojiyadan iyo waxyaabahan la gelayo oo facebook oo fulano oo waxyaabahan midku rababa ilaan tirada ka badan yihiin. ashyaada waxaa laga yaabaa inaad hadda caado ka dhigatay inaad maalin walba saacado aad ku jirto, habeenkii aad ku dhafartood waqti ku gaadho oo saacado aadan seexan karaynin, oodan joogi karaynin ilaa aad firiso. shaygaa isagaa waa caada taxakum kugu samaysay hadda oo ku qaadatay, laakiin markii hore ay cusbeyd celinteeda miyuu shaki ku jiraa inay ka sahlanayd? markay kugu cusbeyd inaad celiso baa waxay ka sahlanayd inaad hadda tidhahda waan goynayaa. hadda nafteeda marka isdhiib ma aha oo inaan isa salimno mee, waa inaan isku dayno inaan celino insha allahu tacala. altawxiid alabyad, halkaana waa macluumo kale oo ciwaan looga dhigay altawxiid alabyad, tawxiidka cad. tawxiidka cad maxaa laga wadaa? tawxiidkiibaa waxaa la rabaa in la yidhaahdo tawxiidku waa wasakhoobaayo dadku way wasakheeyaan. waxyaabahan bidcooyinka ee la samaynayo iyo waxyaabahani waa tawxiidku waa shay nadiif ah oo aada iyo aada saafi ah oo aada iyo aada maarata u wanaagsan. marka adnaa shay waxa ugu yar oo wasakheeya ama maaragtay shaygaas dhaawacaya
wuxuu noqonayaa sida tusaale maradii caddayd. marada cad hadduu ku dhaco wax wasakhi soo ma madoobaato ma guduudato, sidaas oo kale buu towxiidkii khaaliska ahna markii waxyaabo xunxun oo bidcooyina uu ruux sameeyo yuu isagina u wasakhoobayaa. alfawaa'id buu sheekhu sheegay xigmada. towxiidku marka waxa weeyaan u fiirso, towxiidku waa shay ay u argagaxaan oo ay aadaan dadka acdaada ah iyo dadka awliyada ah, bimacnaa gaal iyo muslimba towxiidka marar ay aadaan baa jira. acdaadu waxay aadaan markii ay kurboodaan oo dhibaatadu ay ku badato ayay aadaan oo wax kale ay waayaan. bal u fiirso fii suurati cankabuud aayadda 65 rabbi wuxuu yihi faidaa rakibuu fi lfulki dacuu llaha mukhlisiina lahu ddiina falamaa najaahum ila albari idaa hum yushrikuun. dadka laga hadlay waa gaale ogow. markay doontii ay badda dhex galaan oo ay arkaan hawshu inay halis tahay, allah dacwu llaha mukhlisiin, ilaahay bay u yeedhaan iyagoo weliba ka reebaya waxyaabihii kale iyo shirkiyaadkii kale oo dhan meesha ka saaraya. laakiin markay badbaadaan oy banaanka tagaan bay shirkigii iyo xumaantii ku laabtaan. marka sidaasay xumaanto. amaa dadka owliyadiisiihina iyaguna dhibaatada haysa adduun iyo aakharaba rabbi bay ula laabtaan subxaana wa tacaala. bal u fiirso yuunus calayhi salaam oo markii ilaahay ka dulumaadkii ilaahay xaggiisa u cararaya. rusushoo dhanna sidaasay ahaayeen, laa ilaaha ilaa anta subxaanak inii kuntu min aldaalimiin. marka towxiidku waa mafsaca loo cararo. mushrik iyo gaal iyo muslimba meesha markay hawshu dhiida gaadha ugu daran tahay la aado wey. ilaahay subxaanahu wa tacaala towxiid oo khaalisa allah inagu arsaaqo, waana midka dadku ay ku badbaadayaan. qofkii isagaa haysta unbaa badbaadaya insha allahu tacaala. jazaakum allah khayr, baaraka allah fiik.